halkan waa goobtii uu qaraxu ka dhacay waa isgoyska banaadir si gaar ah wadada aada isbitaal madiina nus saac ka hor ayuu halkan qarax aad u xoogan ka dhacay kaasoo ah qarax ismidaamin ah warar hor dhac oo soo baxay waxay sheegayeen in qaraxa lala beegsaday kolonyo ula socday taliyaha ciidamada booliska gobolka banaadir farxaan qaroole soo baxay ay sheegayeen in farxaan uu ka badbaado qaraxan balse ay jiraan khasaare kala duwan oo soo gaaray halkan waa goobtii uu qaraxu ka dhacay waa isgoyska banaadir si gaar ah wadada aada isbitaal madiina nus saac ka hor ayuu halkan qarax aad u xoogan ka dhacay kaasoo ah qarax ismidaamin ah warar hor dhac oo soo baxay waxay sheegayeen in qaraxa lala beegsaday kolonyo ula socday taliyaha ciidamada booliska gobolka banaadir farxaan qaroole soo baxay ay sheegayeen in farxaan uu ka badbaado qaraxan balse ay jiraan khasaare kala duwan oo soo gaaray halkan waa goobtii uu qaraxu ka dhacay waa isgoyska banaadir si gaar ah wadada aada isbitaal madiina nus saac ka hor ayuu halkan qarax aad u xoogan ka dhacay kaasoo ah qarax ismidaamin ah warar hor dhac oo soo baxay waxay sheegayeen in qaraxa lala beegsaday kolonyo ula socday taliyaha ciidamada booliska gobolka banaadir farxaan qaroole soo baxay ay sheegayeen